sawiradan aad u jeedaan waa gudaha xarunta xalane ee Amisom kooxaha gurmadka degdega ayaa wada markan caawinaada ah in dabkan uusan sii saameynin gudaha xarunta xalane tiro hubiyaala ayaa halkan ku soo dhacay daqiiqado yar oo kooban ka hor hadii aad maqashay jug culus oo ka dhacaysay gudaha Muqdisho si lamida subaxnimadii hore ee saaka dadku waxay ku waabariisteen jug culus oo iyana u maleeyeen inay tahay hubiyaal laakiin waxay ahayd oo kaliya waxyaabo qarxa oo deemish ah oo la soo dhigay dhabarka dambe ee madaxtooyada degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir halkan hadana waa iridda hore ee warshada barfuunka miino ayaa lagu la eegtay ciidamo ka tirsan dawladda intaana gudaha u galin saddexdan warbixin aan kugu koobin waxaan ka codsanaa muuqaalka inaad qabatid oo la wadaagtay saaxiibadaada kale magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dadku saaka waxay ku waabariisteen wadooyinka oo xiran ilaa iyo elboorka labada duleed ee Muqdisho dhammaan waa la xiray si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee Muqdisho waxa ka dhacay shir muhiim ah marka loo eego danaha Soomaaliya iyana waxa lagu qabanay waliba shirkaas isla Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya waxay u ahayd sharaf in dalkeena lagu qabto shirka arrimihiisa looga hadlayo taas waxay u ahayd Soomaaliya oo dhan wax wanaagsan in lagu qabto wax walba oo danteeda ah gudaha dalkeena in lagu qabto si lamida marka dadku waxa saameyn ku yeeshay xirnaashaha wadooyinka dadku waxay isweydiinayaan hadii wadooyinkii oo la xiray goobaha ganacsiga waxbarashada iyo shaqooyinka aad u adkeed in dadku si caadi u aadaan hadana ammaanka magaalada waa maxay sababta ciidamada dawladda ay u guuleysan waayeen subaxnimadii hore waxa dhacay laba qarax kan koowaad wuxuu ka dhacay warshada barfuunka ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa lagu la eegtay halkaas waa ciidamadii dhawaan ka yimid dalka Eritrea iyagu waxa meesan gaarin shacabkan waxa ma gaarin si lamida daqiiqado yar oo kooban kadib hadana waxyaabo qarxa oo deemisha ciidamada sida ay sheegeen ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee madaxtooyada taasoo mar kale dadka qalqal gelisay laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay hubkan culus aad u jeedaan hubiyaashan waxay iskaga dhaceen kuwan meel cidla ah kan wuxuu ku dhacay gudiga xarunta xalane dab ayuu kiciyay geedii ayuu dhaxgalay meelihii checkpointiyada ama laga sugay ammaanka xarunta xalane ayaa sidan u gubanaya waa tiro hubiyaal ah oo ay soo tuureen kooxo ka tirsan shabaab booliisku waxay sheegeen in laga soo tuuray hubiyaashan xaafad lagu magacaabo Forilo waxa laga yaabaa magacaas inuu kugu cusub yahay Forilo waa deegaanka Garisbaale xaafad ka tirsan oo laga soo tuuray gudaha xarunta xalane ay ku dhaceen waxa jira warar kale oo aan la hubin in halkan ay ku dhaawacmeen tiro ka tirsan ciidamada Amisom laakiin dadku waxay isweydiinayaan magaalo afarteeda gees la xiray hadana dadku dhan loo diiday in waxbarashada iyo shaqooyinka aadaan iyadoo shir muhiim oo ka dhacayo sidee tiro hubiyaal magaalada dhexdeeda ugu soo dhici karaan sidee qof bam tuurayo ciidan meel fadhiintu yimaado bamku ku tuuro ka baxsan karo waa su'aalaha inta badan dadku isweydiinayaan shacabka iyagu qodooda waxa ku gudo farta ah hadii koox ka tirsan shabaabku ee bam ama waxyaabo kale ay tuurayaan waxa muhiim ah qof kamid ah dadka deegaanka inuu arki karo hadana wuxuu ka qayb qaadanayaa qofkaas inuu laamaha ammaanka iyagana waxa lagu dhaliilayaa xogaha shakhsiyaadka oo ka baxa oo markale gacanta u gala kooxaha shabaabka hore waxa loo arkay xoga ammaan oo ciidamada dawladda saraakiishooda la siiyay shakhsiyaadkii siiyayna shabaabku ay ogaadeen kadibna dhibaato loo geystay halkan hadda waxa laga soo tuuray tiro hubiyaal deegaanka Garisbaale xaafad ka tirsan xaafadan waxa degan dad kala duwan hal qof oo hubkaas arkay shabaabka oo waco lambarka 991 waa laga waayay waa qayb kamid ah marka kalsooni darada shacabka iyagu qodooda ee laamaha ammaanku ay ka tabanayaan hadii shacabku xogta uu siiyo laamaha ammaanka waxa adkaan lahayd in la arko koox ka tirsan shabaab oo dhibaato geysato kadibna baxsato ka waran wada dhan oo madaxweynaha Soomaaliya u xirneed markii uu sida u marayna isgooska lambar 4 inuu nin ka tirsan amniyaadka shabaabka iyo kooxaha bamka tuuro sargaal halkaas ay ku dhaawacaan taas waxay muujinaysaa habacsanaan mar kale ciidamada dawladda iyo saraakiishoodaba inaan u feejigneen u diyaarsaneen la dagaalanka kooxaha amniyaadka kuwa bamka tuuro iyo kuwa dadka dilaba checkpoint dhan oo ciidamada ka tirsan dawladda fadhiyaan ayaa inta loo yimaado kadibna lagu tuuraa bam 2 iyo 3 laga dilaa waa laga baxsadaa sidee arintaas ku dhici kartaa waa su'aalaha dadku isweydiinayaan ciidanku qaarkood uma diyaarsano la dagaalanka kooxaha shabaabka muuqaalkan daqiiqadaas oo kooban oo kaliya ayaan kugu sharaxay la wadaag saaxiibadaada mar kale mahadsanideen